qaybo ka mid ah shacbiga ku dhaqan gobolka Sanaag ayaa siiska wuxuu qabsaa u dhisaya wadada tabca oo mid xidhiidhisa magaalooyinka Cerigaba iyo sidoo kale Maydh. Warbixinta warkayna ugu soo diray waryaheena Cabdilaahi Xuseen Darwiish. munaasabad kulmisay boqorro salaadiin cuqaal culimaadiinta guurti iyo waxgarad kale haween aqoon-yahan iyo waliba dhalinyaro ka soo jeeda beelaha gobolka Sanaag ayaa bulshada reer Sanaag si iskooda waxay maanta ugu dhagax dhigeen dib u dhis lagu sameeyo wadada tabca ee isku xidha magaalada Cerigaba iyo magaalo xeebeedda Maydh. waxayna sidoo kale halkaasi baaqiyo uga direen cid kastoo dib u dhiska wadadan taageero ka geysan karta. munaasabadan oo lagu qabtay afaafka wadadani ka gasho buuraleyda waqooyiga Cerigaba ayaa xubnihii kala duwan ay halkaasi ka hadlayna waxa hadaloodii kamid ahaa sidan. dhammaan waxaan message-ka ujeedada bayaanku maanta uu yahay in dalka iyo dibadaba laga soo qayb galo waxqabadka hawsha wadadii isku xidhaysay magaalo xeebeedda Maydh iyo Cerigaba oo leehdo tabca oo dhawaan waqtiyadan fooda inagu soo haya hawsheedii la bilaabi doono. waxaanu leenahay wadadaas oo hadda la bilaabi doono cid kasta oo ka soo qayb galaysa waxaanu ugu baaqaynaa inay ka soo qayb gasho hadday mid muslimiin tahay iyo hadday mid gobol ahaan tahay xisbi male reer male waa wada gobolka Sanaag la walbina ka faa'iideysanayo. waxaanu leenahay hal laga soo qayb galo. waxaanu maanta dhagax dhigaynaa waa wadadii tabca marka ummadda waxaanu ka codsanaynaa inay maartay dhaqaalaheeda inay ka soo qayb galaan. qurba joogta waxaanu leenahay oo reer Sanaag wada tashada kala tashado oo ka soo qayb gala wadada gobolada Sanaag iyo Togdheer iyo Sool saaqiyadii baa loo baneeyay maanta laga bilaabo oo loo dhagax dhigayo wadada tabca. waxaan ugu baaqayaa dadka reer Sanaag iyo dadka ka farxamay in wadada laga qayb galo. waxa maanta halkan aanu la isugu yimi in la dhagax dhigo wadadii tabca ee Maydh iyadoo lagu dhan yahay rag iyo dumar loo dhan yahay in wadada la dhagax dhigo. waxaan leenahay oo baaqa u jeedinayna waa dhagax dhigaynaa maanta insha Allah taala. siyaasaddu kuma jirto dadka qaar baa waxay u dhigaan siyaasadda jiraan waxa weeye horumar baa la wadaa hal laga soo qayb galo anagoo ku hadlayna magacii ummadda reer Sanaag. waxaan leenahay laga soo qayb galo wadadaasi waa horumar reer Sanaagna waa u dhanay cid allaah iyo cid naga maqan ma jirto. reer Sanaag oo khusuusiya baanu nahay oo gacmaha isu haysta wadada waxaan u leenahay cid kasta oo danaynaysa oo reer Sanaag ha ka soo qayb gasho. waagii xeebahani furaayeen ciyaartoyga gobolka Sanaag markay kubadda ciyaarayaan ay tagayaan shindada samsamnayda qaadan jireen. ciyaartoyga Hargeysana bac bay dharka ku soo guran jireen. maanta inagii waa bac Hargeysa ku tagna. marka waxaanu leenahay wadadan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ummadda reer Sanaag meel kasta ay joogaan waxaanu leenahay ka soo qayb gala. waxaan ugu baaqaynaa daneeyaasha aad u daneynaya inay horumar gobolkan ay gaarsiiyaan. waxa ugu horeeya wax laga qaban kara waxa weeye wadada iyo dekedeeda arrinta la isu taago dhexda loo xidho. waxaan kale halkan fariin aan gaarsiinayaa walaalaha reer Jabuuti halkan waxa ku duugan Sheekh Ciise si ay ugu fududaato booqashada awoowahood. waxaan leenahay wadadan contribution-keeda laga soo qayb gala. mar hadday Jabuuti gaadhay way jaan qaaday dhulka kalena way gaari doontaa. wax allaale wixii nagala qayb gala mahad baanu u celinaynaa. reer Sanaagna waa u dhan yahay. maanta reer Sanaag waxay garteen garawsadeen wadada in la furo. cid kasta oo gacan ka geysanaysa dhinacay doonto ma naga xigto waxaan soo dhaweynaa. waxaan leeyahay walaalayaal ka soo qayb gala waa wadooyinka laba kala leh. waan sida maanta loo dhagax dhigay ayay u soconaysaa. waqtigeeda hanna waxaanu ku rajo weynahay inay noqoto iyada oo laami ah oo dekadii noogu furan tahay aanu maro. dadka Soomaaliyeed khaasatan reer Somaliland waxaan ugu baaqaynaa nin kasta inay wadada nagala soo qayb galaan oo nala dhisaan. Muuse Bixina waxaanu leenahay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaadna inaad qaybta ugu weyn ka qaadato. waa Cabdilaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Cerigaba.